xaflad ballaaran oo lagu taageerayo qorshaha iyo barnaamijyada horumarineed ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa xalay lagu qabtay hoteelka Burji ee magaalada Tani Jidda. xafladdaasi oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka ee Soomaaliya, aqoon-yahano, indheergarad, culamaa'udiin iyo dhalinyaro ayaa waxaa halkaasi ka hadlay Cabdilaahi Raaga Xuseen iyo Maxamed Muuse Maxamed oo labaduba ka tirsan golaha baarlamaanka ee Soomaaliya, kuwaasi oo si kooban uga warramay in howlaha baarlamaanka iyo kuwa dawladuba ay yihiin kuwa loogu adeegayo danaha guud ee ummadda Soomaaliyeed, sidaa darteedna ay yidhaahdeen ay lagama maarmaan tahay in wax kasta laga hormariyo xaqiijinta himilooyinkaasi si looga hortago wixii kala dhantaali kara siyaasadda guud ee horumarinta dalka iyo dadka. dawladaha caalamka aad arkaysaan waa horumar aad arkaysaan, ma horumarinayo waa shacabkooda. raxa wax la weydiiyey waa la yidhi bii faa'iido ma leeyahay, aniga la fiiriyo khilaafka faa'iido leeyahay intii soo maray aan ka soo qaadano meesha aan iska joojino oo idinku gacan siiyo oo dawladda gacan siiyo. dad hadday wax qabatay CV-geedaas wanaagsan oo wax ku qabatay waqtisha dhowr jeer aan tegey, markii ugu dambeysay markii ku xigtay iyo markii ku sii xigtay way kala fiicnay. jidka number 4 markii hore ma mari karin, baabuurka ku socota xoog ku socda miino ka boodaa, xabaduna korkaada ka dhacaysay, markii dhexe oga yar way ka dheeraan ayaanta dhaweed xaggaasi ka dhacaysay, ma maqalba meel fogay ka dhacaysay, ma arkin xataa xabad jidka ku soo dhacaysay. waxaan malaynayaa ragga wax qabta CV-gooda wax u siyaadinaya. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Sheekh Cali Wajiis oo daaci Soomaaliyeed iyo Alxaaji Maxamed Cali Caadle oo kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee halkan ku nool, waxaana ay yidhaahdeen qiimaha ay ku fadhido dawladnimada ayaa mudan in hoos laga xaqiiqo. dawlad la'aanteed lama noolaan karo. waxaa la yidhaahdaa waa daruuratul xayaa. dawladda inuu jiro culamada islaamka oo dhan waxay isku raacsan yihiin in ay tahay dawlad inuusan dal kasta inaan dawlad la'aan uusan ahaanin yowmnu leyla. waxaan isugu nimiday taageero in aan taageero dawladda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Farmaajo soo maaha. waa idinku waafaqsannahay, waxaana leenahay ayagana waxaan leenahay ku dara wixii laydinka rabay waxbaad bilowdeen laakiin weli kuma joogtiin. waxaa laydinka rabaa dadaalkiina in aad maaragtay dheeraysaan. munaasabadaasi oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka warbixiyey qaabka loo soo qabanqaabiyey xafladdaasi iyo hadafka laga leeyahay Mudane Cali Duur oo ka tirsan guddiga qabanqaabada ahna siyaasi Soomaaliyeed. guddiga qabanqaabada xibin idin ka mid ah oo isu xil saartay inay ummaddan isu yimaadaan ayadoo la og yahay duruufaha lagu jiro iyo nin walbaba waqtigiisa siduu ciriir ugu yahay. laakiin waxay qiyaas waxaa noo cad in ummadda Soomaaliyeed ay diyaar u tahay saacad walba meeshii danta iyo ummadda Soomaaliyeed looga hadlayo inay u soo gurmato u timaado si wax uga ogaato ama ay u dhiibato afkaarta iyo aragtida ay ka leeyihiin. si kastaba ha ahaatee munaasabadani oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa ku soo gabagabowday jawigii loogu talagalay. Cabduqaadir Cali Maxamed, Qayska Hon Cable TV, Jidda, Saudi Arabia.